كانت سوافق كورن قرصورية شكراه نور عيسى محمد أحمد هادي آل يوسف عبد الغني زيري عود وطريقي هي عبد الله عثمان محمود تعليها محكمة السريع حكومة ياشا عبد الفتاح عبد الرحمن ورسمة عبد السلام عبد الرحمن ورسمة قرين أكرهين قرين حبيب عبد الله عيسى هي قرين مصطفى محمد جامع عبد الشكور محمد دقي وقرينه هي عبد الرزاق محمد طارق تعطان ليال حفيظك حيرانيها جود دولة بوتلان هيرارك عبشة soo martay ama dacwadu soo martay maxkamadda darajada koowaad sanadka racfaanka waxaa ka soo baxay laba xukun oo isku mid ah xafiiska xeeraryaha guud wuxuu ku eedeeyey xukumayaasha magacyadooda soo sheegay dambiyada kufsi afduub iyo dil iyo qodobo kale intaa kadib asbaabta maxkamadda markay aragtay duritaanka xukunka maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ee ku taariikhaysan 3 bisha 6 2019 ay xukunkaas ku xukuntay Cabdulfataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo qareeno u yihiin Xabiib Abdullah Ciise Mustafa Jaamac iyo عبد الشكور محمد دقي وقرينه هي عبد الرزاق محمد طارق markay aragtay maxkamaddu dhammaan dukumeentiyada dacwada ku jira markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ku taariikhaysan 27 bisha shanaad 2019 markay aragtay buugga baarista DNA natiijada ka soo baxday dhimashada marxuumad Caaisha Ilyas maxkamaddu markay aragtay warqadda ku taariikhaysan 25 bisha 2019 ee dhaawac muujinta ah ka soo baxday isbitaalka guud ee Gaartacay maxkamaddu markay dhageysatay Cabdulfataax Cabdiraxmaan Warsame inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kufsaday marxuumad Caaisha Ilyas aadan qiraarkaas oo waafaqsan qodobka 149 xeerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu diyaarinayay qabrigii marxuumad Caaisha Ilyas aadan lagu aaslahaa xukunka maxkamadda sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo qareen u kala yihiin Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Mustafa Jaamac قرين مصطفى محمد جامع هي عبد الشكور محمد دقي وقرينه هي عبد الرزاق محمد طارق محكمته وحي أيدي حكمك ترسيسو هي ما رأى ما بقول شن يتبان لما كن سوال يتبان كان صونا بحي صدق كبيش اللي حاجة لما كن سوال يتبان محكمته وحي عسكته شرعات الإسلام يقضى قانون سورة المائدة آية 77 سورة البقرة بقول بقول فضلات السداد كتاب نظام القضاء بقول سداد يشم وضبط قانونك آخر بقول يقو صدح بقول سباشا يسداد آخر بقول يأخركم آخر بقول صدح آخر قرصورياش المحكمة السريع نور عيسى محمد الدومية وصحيحي
أحمد هادي آدم يوسف حبين وصحيحي. عبد الغني ديري عون حبين وصحيحي. عبد الله عثمان محمود وصحيحي. وبالله التوفيق. تفضل حضرتك. ما